musharax Bashiir Aadan Axmed indhacalan leh oo ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa baaq nabadeed waxa uu diray beelaha walaalaha ee dirita coladeed ku dhex martay deegaanka Dhabardarool oo ka tirsan degmada Xudun ee gobolka Sool. musharax Bashiir Aadan Axmed indhacalan leh waxa uu ku baaqay in xabadda la joojiyo isla markaana bulshada deegaankaasi ay qaataan nabadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waaniga musharax Bashiir Aadan indhacalan leh waxaan halkan baaq nabadeed uga dirayaa qolada walaalaha ah ee dirita ku dhex martay gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun ceelka Dhabardarool. waxaan leeyahay abtiyaal dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. waxaynu ku jirnaa bil Ramadaan waa bil cibaado waxaa lagu jiraa xilli abaar ah oo ay kuleyl tahay oo ay dadkii kala guur ku jiraan oo ilaahay in loo noqdo oo la baryo oo roob doon loo baxo bay ahayd in maanta dagaal iyo wax u dhowtoona inaan bilaawno abtimay ahayn. abtiyaal waxaan idin leeyahay dagaalka hadeer bilowday xilliga la sooman yahay maalin jimcaab ahaa maalin khamiis iyo maalin jimcaab dagaalkaasi dhacay waa xilli cibaado waa xilligii toobadkeenka waa xilligii ilaahay loo noqon lahaa waa xilligii ilaahay laga bari lahaa roob iyo raxmad iyo dambi dhaaf maaha xilligii dagaal bilaami lahaa in ciidan qolaba qolo soo dirto maaha. waxaan leenahay dagaalka qadhaadh aan aad baan uga biyadiidnay haddaan nahay musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Caynaba iyo guud ahaanba dhalinyarada Somaliland garaadadii garaadadii ha kacaan oo caaqaladii ha kacaan oo odayaashii ha kacaan oo sida ugu dhaqsaha badan leh dagaalka ha loo joojiyo oo hala dhex galo oo caawa hala damiyo maanaan jeclan caawa in dagaal ka dhaco laascaanadiina waxigeeda waxaan ka filinay ma ahayn xilli dadkii hagaagay bay ahayd xilli jaahilnimadii iyo qorigii laga tegay bay ahayd xilli aana iyo dagaal la soo qaatay ma ahayn xilli abaaro kulul baynu ku jirnaa. marka waxaan leenahay baaq nabadeed baan u diraynaa. dagaalkaas aad iyo aad baan uga naxnay oo aad baan uga xumaanay oo laga waantoobo intii dhimatayna ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah naga siiyo jannada firdawsana ha ugu deeqo inta kale ee hadhay hadda soo fadhidana in la kala kiciyo oo la nabadeeyo oo hawshooda la galo weeye. waxaan leeyahay garaadadii hawsha ha galaan cuqaasha Somaliland oo dhan inay tagto meeshaas oo dagaalka Ramadaanta bilowda la joojiyo oo waa xilli kulul in xilliga dagaalka la joojiyo oo qolooyinka diritu dhex martay dirita qalaad dhex martayna ay kala samraan oo wixii dhintay reerihii qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen inamadii shalay ilaa xalay ku dhimanay dagaaladaas. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan saadiq ay idinka siiyo. dagaalna wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. wadda Somaliland waxaan u soo jeedinayaa inay dagaalka halka ka socda sida ugu dhaqsaha badan leh ay u gasho oo ciidamadan jiida jooga loo diro oo la kala dhex galo oo dadka walaalaha ah aanay xabad dambe ka dhex dhicin oo sidii nabadooda loo gaar lahaa ilaahay baa nabad haye looga shaqeeyo oo odayaal la diro oo caaqil la diro oo salaadiin la diro oo la kaco oo sida ugu dhaqsaha badan leh dagaalka loo soo gabagabeeyo yaanu caawa inagu dhaafin baan leeyahay abtiya caawa iyo inagu dhaafin dagaalkaasi waa xilli kulul inuu inagu dhaafo waa xilli Ramadaan waan iska cibaadeysanayna wixii dambe reeraha ay ka dhinteen wiilashu wixii dhaawacna waxaan leeyahay ilaahay ha u boogadhayo oo ha caafiyo oo caafimaad sareecan oo degdeg ah siiyo. dhiilada iyo dadkan dhiilada kicinaya ee baraha bulshada soo dhigaya halkaas ay maraysaan hala joojiyo. baraha bulshada iyo waxaan la soo dhigay inta laga dilay reer hebeliyada laga dhigayna waa kicin dadweyne weeye taana hala joojiyo. waxaan leeyahay dhalinyarada Somaliland iyo gaar ahaan kuwa gobolka Sool waxaan ay soo dhigayaan iyo khalaasaan ay wadaan iyo baabuurtan ay ka soo duubayaan ha joojiyaan bartaana dagaalka lagu joojiyo